waxaa barnaamijka daaris uu soo gaarsiiyey dugsiga sare ee caalami secondary school tartanka fahamka iyo xawaaraha akhriska oo loogu talagalay in 20 dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa ay ku tartamaan tartankan ujeedada ugu weyn ee barnaamijka daaris uu ka leeyahay waxa weeyaan dhiirigelinta akhriska si gaar ah ardayda dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa saddexda arday ee matali doona ee tartankan wareegiisa labaad ku soo baxay dugsiga dhexdiisuna waxa weeyaan kaalinta koobaad waxa gashay Quraysh Shukri Maxamed waayahay kaalinta labaad waxa gashay Raxma Maxamuud Ibrahim kaalinta saddexaad waxa gashay Shukri Xasan Maxamed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa barnaamijka daaris oo ka qayb qaadanaya fahamka iyo waxbarashada ardayda kaasoo kobcinaya in ardaydu fahamkooda oo kor u kaco isla mar ahaantaasina xawaaraha akhriskoodu uu ka sareeyo heerka ay maanta taagan yihiin oo ay ku tartamaan aqoonta waxaanan aad iyo aad ugu hambalyeynaya barnaamijkan ay soo jeediyeen barnaamijkan daaris oo ah barnaamij aad iyo aad wadanka ugu baahnaa isla mar ahaantaasina aanu rajeynayno inaan noqon kii ugu dambeeyay ay sii joogteeyaan si ardaydu ay mar walba intifaac uga helaan si ay u kordhiyaan fahamka iyo xawaaraha akhriska aad iyo aad ayaan ku mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajeynaynaa in miisaanka xasanaadka uu ku daro waxa barnaamijka daaris uu soo gaarsiiyey dugsiga sare ee Qula Aadan tartan ka dhaxeeya 20 dugsi oo ku yaala magaalada Hargeysa tartankan waxa lagu tartami doonaa fahamka iyo xawaaraha akhriska af Soomaaliga ujeedka ugu weyn ee barnaamijka daaris uu ka leeyahay tartankan waa dhiirigelinta akhriska si gaar ah waliba dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa soo baxday natiijadii wareegga labaad waxaana soo baxay saddexda arday ee matalaya dugsiga Qula Aadan ee uga qayb galaya tartanka ka dhaxeeya dugsiyada kale kaalinta koobaad waxa ku soo baxay Fadxi Cabdixakiin Maxamed Sacbaloto soo kac kaalinta labaad waxa ku soo baxday Safa Kayse Maxamed kaalinta saddexaad waxa ku soo baxay Nimcaan Maxamed Xirsi goorma kugu horeysay moohibada sawirka inaad isku ogtahay ama hibada sawirka la yaraantii ayaan wax sawir jiray wixii ugu adkaayay istiraawad sawirta waa maxay wixii ugu adkaayaan istiraawad bureeqa okay waa si wanaagsan sacabka loo tumo aad baa mahadsantahay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada barnaamijka daaris oo runtii ah barnaamij qiimo badan barnaamijkaas oo lagu soo nooleynayo afka iyo dhaqankeena hooyo tartankan ahaa xawaaraha iyo fahamka akhriska wuxuu dhiirigelinayaa ardayda iyo guud ahaan mujtamaca oo dhan waxaana la yiraahdaa inta badan marka wax la akhriyo
ama aayadda ugu horreysay qur-aankeena soo degtayba iqraa bay ahayd marka akhrisku muhiimaddu leeyahay waxaad ka dareemaysaa aayadaasaad ka dareemaysaa dhiirigelintaa lagu dhiirigelinayo ardayda iyo bulshada kaleba akhriska waa waxaan uga mahad celinayno